magacaygu waa Dr. Abdiraxmaan Oto Dheere waxaan ka shaqeeyaa howlgala cusbitaalka takhasusiga iyo tacliinta Dalmar haddii qeexno calool adeega waxa waaye waa wax ka yar 3 mar asbuuci inuu qofka oo musqusha oo saxaroodo ayaa loo yaqaanaa calool adeega marka waxaana sababa waxyaabo badan waxaana kamid ah qofkii inuu uusan cunin cunto oo qolof leh oo sida cuntooyinka wadaniga ah oo dalkeena ka baxo iyo biyo badan oo cabin iyo waxa kale kamid ah jimicsi qof uusan sameynin intaas oo isbiirsada ayaa sameyn kara calool adeega intaas hadduu sameynina calool adeeg kali kuma ekaanayo dhib kale sii sabayaan ay kamid yihiin inay saxaradii ay ku dhigto dirbiyada caloosha iyo inay adhooti qofkii musqusha waqti badan oo ku raago oo saxarada waqti badan qaato soo bixitaankeeda waxyaabahaas ay sabayaan haddii aan uusan si fiican u isticmaalin biyo badan iyo cuntooyinkaas wadaniga ah ramadaanka waa ognahay cuntooyinka aan isticmaalno cuntooyinkan aan soo sheegay kuma jiraan marka sababtaas ay u badan yihiin marka calool adeega intaas waa loo aaneyn karaa ramadaanka maadaama ramadaanka u badanaa sambuuskiina cunno sambuuskiina wax jilcan maahan oo wixii calool socodsiin karo badanaan biyo badan ma cabno biyaha badan waxay naga saaciidi lahaayeen waxa waaye wadadii iyo mari lahaayeen saxarada ayuu sii qoyn lahaa si saxarada tartiib ama si fiican ay u marto colonoscopy waxa waaye waa procedure casri ah oo lagu ogaado dhibka ka jiro mindhicirweynaha waa procedure aad u fudud waa tube afka ugu xiran yahay camera taasoo lagu fiiriyo dhib ka jiro mindhicirweynaha qofku wuxuu u baahan yahay bukaanka oo calool adeega hayo markuu soo raaco saxaradiisa dhiig ama caloosha xanuunto qofka maadaama aan bukaano badan oo ka cawanayo dhibkaas aan arkay ugu dambeysay asbuuci hore bukaan u sameeyay oo ka cabanaya muddo badan calool adeeg marka u sameeyay colonoscopy aan ku arkay mindhicirkiisa blockage ama inuu ku yaalo ku dhex yaalay maxaa lahayay buro weyn buradaasna meesha saxarada soo mareysana aad u yareysay marka yaritaankaasna qofku muddo badan calool adeeg ku jiray muddo bil ah colonoscopy wuxuu fiican yahay dhibkaasoo kale soo saaraa bukaanada kula talina hadiiba saxarada dhiig ku arkaan ama muddo badan ay calool adeeg ahaayeen inaan u sameyno tubadaas ama colonoscopy procedurekaas aadan u fudud yahay wax weyn maahan calool adeega sida kaliya lagu daaweyn karo ama ugu fudud waxa waaye qof inuu biyo badan cabo adeega maalintii 3 koob 4 koob inuu cuntooyinka qolofta leh oo loo yaqaan wadaniga inuu isticmaalo cuno iyo inuu jimicsi uu sameeyo marka intaas waxay ka saacideysaa marka inuu qofkii calooshiisa socoto qof wuxuu u baahan yahay dhaqtar inuu arko markii talooyinkaas aan siiyay wax fiican ka arki waayo ayaa qof muhiim ay tahay inuu dhaqtarka arko si baaritaan kale loo fiiriyo waxyaabo kala sababi kara si loo ogaado marka wuxuu u baahan yahay bukaankaas inuu dhaqtar la xiriiro ama lagu soo booqdo xarunteena cusbitaalka takhasusiga iyo tacliinta Dalmar talada aan siinayo ramadaanka dadka inay ku darsadaan cuntooyinka cunayaan cuntooyinka aad u jilcan oo qolofta leh inay biyo badan cabaan iyo inay jimicsi ay sameeyaan cuntada cunaan aysan la jiifanin wixii marka caloosha socodsiiyaan muhiim waa marka biyo badan cabtid haddii biyo badan cabin wixii meeshii wax mari lahaayeen hadiisan lubrication wax laho aysan lahayn si fiican u marayaan wixii adkaanayaan mindhicirka wuxuu ku sameynayaan inay saxarada meesha ku adkaato haddii meesha ku adkaatana dhowti dhib kale iyo mushkilad kale keenay marka biyo badan la cabo jimicsi fiican la sameeyo iyo maxaa lahayaa cuntooyinkaas wadanigana si fiican lagu dadaalo Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.